عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سوماليين تملوا بأيكون نشاه. وحن كم يدهاي عيدن ككو حريصان دكسي بادر. مدة سديد بلوت وبرك أو سعودي كان إماتي سنتق سومالي أنت يكلا كوبان تودن. لوقود والبو أي تاي ماشين جوكتنا وأنكودنا سوماليين إننا مكاننا ملها. sababta jirto waxa way ciidan kan maalintii la soo xareenahay dugsiga baarayna la keenahay waxaan lagu keenay muddo dhan 40 cisho been waxay ahayd soo gabagabowday waqtiga intana la keenay waxay nin walba wadanka maqan iyo wax ka qabanaya sideed bilood inta aan joogno macallimiintaanada iyo anagiiba cid xuquuqdaanada xitaa isweydiisay meel kaga hadashay ma jirin annagoo dhan nin walba raganimadiisa iyo aqligiisa meesha ku jooga ciidan caafimaad la'aan xanuun wuxuu yahay daawo la'aanteedii meesha lagu soo samray hataa cunno la'aan waxay ahayd hataa laba askari oo ciidankan kamid ah xanuun iyo caafimaad darro u dhinteen cid dawladda isweydiisay ma jirto annagii macallimiintaanadan baa la hada dhacinay kadibna askari ugu dambeeyay ee lugta laga hayay ee lugta hataa go'itaan ay ku dhaweed dawladdu waxa noogu horreeyay arag wuxuu ahaa taliyaha lugta iyo madax la wada socoto saraakiil silsila asagaas naga qaaday asagana dawladdu noogu horreeyay nooguna dambeeyay kadibna cid socoto damaana arkin cid dambe oo su'aaltaanada soo qaadayna ma jirto inta aan joognaad arkaysaana saacadan hadda bisha Ramadaan lagu jiro cid hadda ka aqaanta hal guri baar ee ka aqaana mala intaanaba ila boorkan ka soo wada degnay waad ogtihiin wadada inaan meel loo mara lahayn cadawga meel buu taagan yahay 15 kilomitir aan loo gaari karin magaalada ila boorkan waad ogtihiin inuu nin walba sharciga intuu ku imaaday uu ka warsugayo maadaama dawladda madaxdeeda qayb kamid ah inta ayna keeneen madaxdii iyo anaga dhaxlaanana mugdi fara badan oo culus oo ka muuqdo oo wax naga warhay aysan jirin dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsi badan inay arrintaana wax uga qabtaan ayna dhibsadaan maadaama meeshan dad ku xareysan xabsi Liibiya laga soo sidaa dad waa maqli jirnay India dad laga soo sidaa waa maqli jirnay Ethiopia dad laga soo sidaa waa maqli jirnay laakiin anaga macallimiintaana hal xaro oo korka banaan lagu wada xareeyay cid naga warheysana ma laha haddii laga soo sidaanahay banaanka dadkii ku xirxirnaa kuwii gudaha ayaa u maqan anaga gudihii baan ku dhaxiranahay waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taliyaha xoogga dil wasaaraha Xasan Cali Khayre dhammaan waxaan ka codsanaynaa arrintaana inay si degdeg wax uga wada qabtaan waana mahadsantiin dhamaantiin Soomaaliya inagana noolaada bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay baan salaamayaa salaan gaarsiinayaa salaan ka bacdi hal eray waxa weeyaan anigu waxa la ilaaha Cali Jaac Maxamed aniga oo askari Soomaaliyeeda uniformkii dawladda Soomaaliya ku labisan jooga dugsiga baar dheere ee tababarada ciidamada militariga Soomaaliya joogo ku sugan waxa weeyaan hal codsi baan waxaan u dirayaa iyo baaq dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay meeshan waxa ku xireysan 300 oo askari 300 oo askari baa ku xireysan 300 oo askari baa ku xireysan dugsigan 8 bilood muddo ay ku xireysan yihiin waxa weeyaan xaaladda maanta aan ku sugannahayna waxaan jeclaan lahayn dawladdeedu intay timaado inay nala aragto haddii aan dalka iyo dadka dambi ka galay waxaan codsanaynaa maxkamadda in loo gudbiyo haddii aan xaquuq ku leenahay ciidda Soomaaliya iyo calanka iyaga iyo dalka iyagana dawladdeeda baaq waan u diraynaa inay noo timaado waxaan ku sugannahay inay nala aragto annaga iyo macallimiintana tababaraysay 8 bilood isku waxaan taagannahay maanta isku mid waxaan raacinayaa ducayar oo Soomaaliya aan ugu ducaynayay islaamka Allah ya dad islaama oo adiga uu ku rumeeyay oo awoodada qiraaya oo udgoon nabigaagi iyo rasuulkaagi adeecay oo shanta arkaan islaamka kidigood ashahaatay oo adimaya salaada oo oofinaya sakaadka oo soonta aan afurayn oo umradii xashka aaday oo islaam aan ahayno amarkaaga jideeyay alhumaadka dhacay aafada fayras corona kidigood ba islaamka iyo gaar ahaan arligeena iyo ummadeena ka dheero rabbiyowna ilaali weeya kaleete Ingiriiska iyo China iyo Yurub aafada leesay Shiinaha aman kaagay ee aniga amar weyn iyo aaladay ridayeen iyo aabigii socon waayay talaamu afka duubtay ayartiifsaday meel albaabku deganaa iyo aqalkiisa ma dhaafo ilaa la dub saarayo dadba way isku awood adiga oo aqoon leh oo adiga oo ogaala oo adiga wax ilaawin oo adan ku ashkatooni oo adiga aan arkaye rabbiyowna ilaali oo rabbiyowna amaanso والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح شرفت له
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre dhammaan mas'uuliyiinta waxaan ku salaaminayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabacda assalaam anigoo ah xasan maxamed cabdi oo ku magac dheer xasan gaab oo ka soo jeedo degmada lambar konton gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo jooga dugsiga baardheere 8 bilood ku xaraysan dhib fara badan soo maray haddeertan waxaan ka codsanaynaa madaxda sharafta leh maadaama bil ramadaan lagu jiro in si dhaqsiyaha badan ay nagu soo gaarto maadaama maaragtay dadka meesha ku xaraysan ay yihiin Soomaaliya aysa ahayn maaragtay ajnabi dawladda waxaan ka codsanaynaa in ay na soo gaarto meesha annaga ay joogno maaragtay dhibaatada maaragtay meesha annaga noo haysato isheeda inay ku aragto ayadana ay naga soo gaarto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awluhu naas salaama idin weynaha sharafta leh macallimiinta iyo awluhu salaam marka dambe يعني ماشي مدنا كنولنا سديد بلود أبكى كنولنا سديد بلود أنت هالكي كدول قادت كني كنتي توبر في لقادني إذن أو سوماليا أو يعني ودنين أجانو إذا أنتول قادن باهيو ينبضنا كدول قادن ما كدول قادن داول أنا كدول قادن إذا أنصبرن أنتيون سأصبرني إن بدنو هانكنا دولتنا وما سقطنا مدحوينها مدن محمد عبد الله فرماجو زي الوزارة حسن على خيره تليها حوق ما سقطنا دمان لما يرتي ولا كلشيني سجل يتوانت قبل الصومالي قوانت لقش يعني لكلشيني أو الدنيين تأجيان أو كوجهنا عدو الصوماليات إن الدجال من ديار أجيان إن يعني نسيب دق ظروف تشوف كنول يعني ولا نقبض ميل حمدك معانا يويد وميل عيراك يعني هو قريبا من أضيالك أو حجردك يعني هو قريبا كدب نهو قاديبا أم نهو يبنا أربور انترناشنال آدم عدي يعني هو يبن سين نهو يبن دايوري نهو قاديبا مقالة ميرا بار داريا نهو يبن كدب قام حمد آتنا هم إلهي ددني والا يرو إنه محمد آتنا إيدم وينا صوماليا حوق دالك صوماليا إنه مدها آتنا يا معناه قوان سنين نهو قاديبا إذا أنا موضع لو بدني يا الهلمني رفات بدني يا الهلمني أولاً قامها أتنيو مدحوينا صوماليا محمد عبد الله فرماجو قامها أتنيو أنس أو صومالا نمالية أو إلهي كسونهي مسلم نمالية نكوها دقايوت لو باقون رفادنا كان لو يا قون ونوى لو قون معنا بلسون قلتوتي يا حسو معنا إن شاء الله قامها أتنيو مدحوينا صومالي محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حسن على خير وزير تليا حوق كل قامها أتنيو أن أو سن نظامة أو صومالي نمالية نقول دقايوتا قولك لو هقونا وراء دعينا يا حسو معنا هستوك أنا قامها جيداتو دقمات قريولي كورتواري سبلالي يدك هي سنور أو ديجان هلي يا حمدك فهمتوك قامها أتصنيو ملاحظة شرفها لدولتهم إن أو نقود دقائق تاسك بحثي أبدا لو أكون قوم ولا بدله رئيس الوزراء مدحوينا إن أتات لي حوق وزير دا كل يا أتصنن إن أرنتهم فرحايا يبا وراء داين سومين هنو أفرين هن سور داين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا البلد مقوى صوماليا صوماليا أولا عام هذا علنا إلهي سبحانه وتعالى نسيي نود يا عافماد
naguna gaarsiiyey bishii barakaysnayd ee Ramadaan na karsiiyey haddana inaan soonno oo waajibaadka asaga uu nasaaray aan gudanno awalan ilaahigaas baa mahad iska leh marka xigto waxaan salaamaynaa madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka gaashaandhigga taliyaha militariga taliyaha lugta taliyaha qaybta dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto intaas bacdigeed waxaan ka hadlaynaa arrin yar oo aan qarsan weynay oo dhibaato ah oo meeshaan nagu haysato annagu dawladda iyada waan jecelnahay waan u shaqaynaa duruufo kala duwan oo fara badan baan ugu soo shaqaynay haddana waxaan u taagannahay inaan u shaqayno oo duruufaha iyaga iyo kuwa kasii adag baa ugu shaqayno arrin aan filayno inaysan ka imaanin madaxda qaranka ugu sarreyso oo aan isleenahay waa musuqmaasuq dhexe oo meelahan dhexe ka jiro oo annagana aad noo saamaysay baan rabnaa inaan madaxdannada halkan ka gaarsiino Soomaalidu waxay ku maamaadaan wixii aad qarsato way ku qarsadaan meesha hadda annagu aan joogno waa dugsiga tababarka degmada Baardheer ee gobolka Gado meeshaan waxaan joognay in muddo ah waxaan ka soo saarnay ciidamo badan oo kala gedisan oo booliis iyo military leh ciidanka hadda meesha fadhiyo oo hortiisa hadda aan taagannahay waxaa meesha ku soo xareysay dawladayada annaguna waxaan ahayn soo saarayaasheedii ragii tareeringareynaya oo macallimiinta u ahaa baan ahayn meeshaan ciidankan waxaan ku haynay in muddo ah intaas muddada aan ciidankan meeshaan ku haynay waxaan ku haynay duruufo aad iyo aad u adag ciidankan waxaa weeye ma ku hayno oo madaxdayadii annagana xukuntay kama hayno wixii ciidankan xaqa uu lahaa maxaa yeelay askariga haddii la tareeringareynayo oo uu tababar qaadanayo waxaa weeye xuquuq buu leeyahay xuquuqda uu leeyahay waxa uu ugu horeeyo waa naftiisa wuxuu u cuni lahaa inuu kaa helo adiga askariga markii wuxuu cuni lahaa aad u heshid oo naftiisii asaga aad u noolayso kadib baad tareeringarayn kartaa adiga duruufo kala gedisan baan ciidankan ku soo tareeringaraynay tareerinkiisii waan u soo dhammaynay xaalad walba iyo qaab walba uu ku soo qaatay meesha madaxda qaranka waxaa noogu yimi rag kala gedisan oo ugu sarreeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliyaha ciidamada lugta way arkeen ciidankan iyo xaaladiisa rag kale oo mas'uuliyiin oo kale oo qaranka ka socotana waa noogu yimaadeen laakiin annagu ciddana xukuntay ciddaasun bay ahayd way arkeen duruufaha iyo dhibaatada ciidanka kale uu ku jiro riboodkooda waa la siiyey oo madaxda annaga naga sarreysa way siiyeen way qaateen riboodkoodii jawaabaha ayna siinayeenna waxay ahayd sida ugu dhaqsiyaha badan baa jawaaba nooga heli doontaan waqti dheer baa ka soo wareegtay heer madaxda iyada ee hadda halkaa ka tagta ay tagto meesha la yidhaahdo xamar ayada oo aan waxba ka duwaneyn sida ay noogaga tageen bay haddana nagu soo laabteen ilaa haddeertaan ma hayno wax sidiisaba ciidankan wixii uu u baahnaa ama uu xaqa u lahaa ama dugsi ahaanba waxaan codsanaynaa madaxda iyada sharafta leh oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga taliyaha xoogga taliyaha lugta dhammaan mas'uuliyiintana waxaan ka codsanaynaa dadkan waa dad Soomaaliyeed annagu waxaan nahay dad Soomaaliyeed meeshaan waxaan u joognaa Soomaaliya meeshaan joogno waa meel furana waxaan isku dhex wadnaa inaan difaacno wadankii aan soo saarno ciidamo
meeshii marka dhiirigelin iyo aan ka heli lahayn in nala garab qabto in nala sii qabjabiyo oo hanka iyaga hoos loo rido waxaan mudannahay maaha waxaan codsanaynaa madaxdannada aan ka codsanaynaa ciidankan wixii uu lahaa oo xuquuqda ahaa oo ama dugsigan uu lahaa ama ciidankan uu lahaa in si emergency ah nalala soo gaaraan codsanaynaa waxaan ugu kallifay inaan miidiyahan ka hadalno waa waxyaabaha aan ka soo hadlay haddeer oo ah inaan si daaragti ah wixii aan annaga rubood u lahayn oo ama taliya qayb ahaa ama taliya ciidamo ahaa ruboodkayagi si daaragti ah inaan mar walbo ay madaxdayada u bixinayaan isla markaa haddana jawaabo na anfaco aanan ka helin meesha ayada qofka bini'aadanka ah waxa uu ku nool yahay waxaa ugu horreeya biyo meeshaanan joogno waa degmo waxaa weeye ciidankan xitaa lagama soo aruurin degmadan lagama soo qorin waa ciidan Soomaaliyeed shanta geeso Soomaaliga laga kala keenay ciidanka halkaa marka laga kala keenay oo xitaa wax degmadan ku dhashay ay hal iyo laba yihiin annagu waxa aan ku hayn karno oo kaliya waa inuu qarankayaga waxa weeye waxay xaq u lahaayeen noogu dhiibo oo ku hayno oo aan meeshaas ku wada noolaan qaabkaas isaga aan ku tareerin garayn karnaa oo waxa weeye shaqooyinka ay leeyihiin ayagana ay ku qabsan karaan wuu dhamaaday ciidanka tababarkiisi 8 bilood bay soo garaacayeen oo qaab walba oo xeelada dagaal ay soo barteen xilliga waxay joogeen oo soo dhaafeen waliba qalabkooda la siin lahaa loona dirsan lahaa shaqooyinka qaranka oo loogu talagalay inay qabtaan meesha shaqooyinka qaranka loogu talagalay inay qabtaan baa waxaa lagu dhacday waxa hadda aan ka soo hadlayna waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba dawladdeeda inay si hoos noo soo fiiriso annagoo waliba aad u aaminsan inuusan musuqmaasuqaas ka imaanin madaxda sare oo meelo dhexe ay wax ka jiraan waxaan codsanaynaa meel walba ay wax ka jiraan dawladda inay gacanta geliso si emergency aan ay noo soo gaarto aad baa u mahadsantihiin Ramadan Karim waxaan leenahay madaxda qaranka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka muslimiinta ah oo la xanuunsan xanuunka coronavirus waxaan leenahay lambarkow Ilaahay ha ilaaliyo cudur xun baa jira cudurkaas Allah naga qaado qof walba muslima waxaa waajib ku ah in wixii looga baahan yahay oo waajib ah uu guto intaa kadib saaka meeshaan waxaa isugu kaana keenay waa xaalad jirta oo emergency ah xaaladaasoo nooga timid annagu haddii aan nahay ciidan marna aan qaranka u taagannahay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan nahay waxaa laga maarmaan ah inaan ilaalino sharciga ciidamada qaranka uma gafayna madaxda waddo xunna inaan qaadno waajib naguma aha laakiinse muhiimadda waa inaan ka hadalnaa wixii cabasho ah oo annaga aan qabno madaxdana waa inaan u jeedinaa runtii miidiyaha wax nagu kallifayana waxaa ka mid ah waxyaabaha dhexdhexa oo madaxdii annaga noo dhexeeya ciidanka nidaamkiisa waa jaranjaro gurigana jaranjaro lagu fuulaa nidaamkii marka ciidanka waxaa xakameeyey waxdana u degay waa ragga hadda cabashada aan ka muujinayno ragga ayagaa sidaan filaya waa rag dhalinyaro ah hoteellay degan yihiin halkaasay dawladdii annagaba ay nagala xiriiraan waxay sameeyaan ciidan qaran oo meel lagu xareeyey oo daawo u baahan oo wax walba u baahan yaa isbuucba nin baa nala hadla wuxuu yidhaahdaa wixiini waa diyaar agabkiini waa diyaar xuquuqdiini waa diyaar berri baa laidin soo diraya madaxweynaha wuu idinka warqabaa ra-iisul wasaaraha waa u sheegay
golaha wasiirada waan gaarsiiyey xaaladiina meel fiican bay maraysaa kadibna taleefonku xiranaya mid kale kugu cawilaya waxaan cabashada ka wadna waa barnaamijka noocaasa annaga ma nihin qaxooti waxaan nahay qaran soomaaliyeed oo dhisan waxaan codsanaynaa marka in madaxdanada si toos ay nooga warqabto intaa kadib waxaan baaq u soo jeedinaynaa dowladda soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa aad nasiib darro u ah in cabashada ciidanka markay ka hadlayaan ay yidhaahdaan madaxweynaha codsi u wadnaa oo madax ka sokaysa la waayo iyo in shacabka markay hadlayaan ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha yidhahdaan taasaan aad ugu xunnahay waxaa laakiin sharci ah ciidankana inuu waddadiisa qaado shacabkana uu waddada qabsada laakiin wixiiba haddii madaxweynihii ay yidhaahdaan ra-iisul wasaarihii la yidhaahdo ooba meeshaas marka waxaad fulaysaa in wax ka sokeeyo aysan jirin waxaan marka aad u codsanaynaa xayntaab baa noo dhexeeya mudana madaxweyne in xayntaabka asaga aad naga qaadid ciidanka soomaaliyeed oo meeshaan lagu soo xareeyey oo luuqadihiisa aad maqlaysaan cilada keentay marka in annaga cabashada aan ka soo jeedino waa raggii ciidankan gacan ku-hayntiisa loo dhiibay wey waxaan aaminsannahay marka ciidanka in mudana madaxweyne qandaraas lagu qaatay adigana qaab lagula hadlaya annagana qaab lagula maamulayo waxaa qabadana haysato ciidanka soomaaliyeed oo meeshaan lagu xareey oo dhammaan muslimiinta ah waxaa ugu dambeysay xaquuq ay ka helaan dowladda soomaaliya bishii labaad 15 bishii labaad 15 markaan marayno iyo waxaa noola soo diray 15 beri lacagtooda lagu soo dhufto 15 kalena waa nagala jartay wixii ka dambeeyeyna waxba noolama soo dirin intaa wixii ka dambeeyey sarkaal u shaqeeya qaranka soomaaliyeed oo taliyaha ururka degmada Baardheera ayaa ciidankan gacanta ku dhigay oo la wareeyay markii uu waday adoon muddo markuu wadayna waqtigii baa isgaabiyey waxaa dhacday in hawadii la xiray waddooyinkii roob uu xiray coronavirus uu imaaday dadkii ay kala xamadneen saas darteed marka asagana culays uu isu qaadi waayey xaaladdiina ay jaq ku noqotay wixii ka dambeeyey marka mudane ciidankan ilaahay uun gacantiisa moogiyo cid kale oo haysay maysan jirin bisha ramadaan oo dhalatay waxaan ku afurnaa kuna soonnaa oo ku saxuuranaa waxaanan shacabka nagaas gudihiisa naga soo gaaro oo keliya dadkana maahan dad deegaankana u dhashay maahan laakiin waa Soomaaliya oo deegaanka iyaga iskale laakiin waa dad wadamo kale laga kala keenay oo qaab kale ku yimid sidaa darteed ramadaanka marka culays fara badan buu nagu hayaa waa dareemi kartaan ciidan aan xaquuq lahayn oo dabkiisa uu shidnaan aniga oo mas-uuliyadda xaradan ka tirsan waxaan baaq ugu dirayaa dowladda Soomaaliya ugu horreyn in ciidankaas dabka loo shido mala caafimaad mala biyo mala raashin daryaal kalena ma jiro ka warqabis kalena ma jirta waxaa dhacday marka ciidankii in marna nabad sugid baad ka tirsantihiin la yidhaahdo oo abaaduulaha nabad sugidda gacanta loo geliya kulana marna cabdullaahi taray wiil la yidhahdo oo qandaraasla gacanta loo geliya marna la yidhaahdo madaxweynihii baan baryo ugu tagaynaa bal asagaan u tagaynaa mudana cabashadaan wadna marka waa cabashada noocaasa maahan ciidanka qaxootigaa loo baryo tagaa laakiin ciidanka wuxuu ku salaysan yahay sistamka jaranjarada inuu maro waxaan codsanaynaa marka in jaranjaradii nala saaro si aan ugu tagno fooqa kore gurigaan u fulno si annaga iyo waajibkanagana aan u gudubno waxaan codsanaynaa waddada saxda in nala saaro waxaan codsanaynaa mudane
raggan qandaraaska nagu qaatay oo waddada noo degan xayndaabkaasna nagala qaaday aad baan u codsanaynaa mar labaadii mid saddexaadii mar afaraadba waxaan salaamayaa salaannaan u soo jeedinaynaa baaqnaan u soo jeedinaynaa dhammaan muslimiinta soomaaliyeed ugu horeeya madaxweynaha soomaaliya uu ku xiga ra-iisul wasaaraha walow ra-iisul wasaaraha aan aad saaxiibo u nahay oo hawadaan saaxiib ka nahay mar labaadii mar saddexaadii mar afaraadba waxaan salaamayaa ra-iisul wasaaraha qaranka waxaan soo jeedinayaa marka in ciidanka xaggiisa loo soo jeesto waxaad ogtihiin ciidanka hore oo qaranka soomaaliyeed maanta meel fiican buu marayaa heer wanaagsan buu marayaa xaduudihii ka howlgelayaa lacagta baa tarata u socota 25 mushaarka waa la qaadanayaa xuduudka iyo meelo weligood ciidanka soomaaliyeed aan ku arkayna ciidamada way tegayaan laakiin kuwa dhubowga oo hadda xaroonaya waxaa muuqanaysa in qandaraas lagu bixinayo mudane waxaan soo jeedinaynaa marka madaxweyne annagoo maanta inaan wax kuu tilmaano aan aad ugu xunnahay laakiin dantaynu u kallifaysa inaan wax sheegno sababtana meel aan kuu soo marna aan weynay inaan miidiya kuu soo marayana ay qasab tahay waxaan codsanaynaa marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba nidaamka saxda oo ciidanka lagu maamuli jiray in nagala dabageeyo ciidamada qaranka waddada ciidamada qaranka ay mareenna in nala mariyaan soo jeedinaynaa aad baad u mahadsantihiin